waxaa laga yaabaa waxyaaba qaarkood haddan ka warramo inaad ka yaqyaqsootaan waayo dadka waxaan ka shaqaynayaa waxaan see loo helaa tusaalaan ku siin cosmeticska dunida la isticmaalo qaybo ka mida proteinska lagu daro qaarkood dhakhtarku wuxuu daadiyaabaa laga soo saaraa caruurtan yarare lasoo daadiya soo mataqaanayn abortionka maydkan caruurtan la daadiyey qaarkood baranbaro la beeray beed baranbara laga soo guraa baranbarada soo mataqaanayn proteins baa laga soo guraa qaarkood kaadida bini aadamkaa lagala baxaa proteinska qaarkood kaadida bini aadamkay kala soo baxaan qaarkood yani ninkan waxba xalaalka ma aha waxba xaaraanka ma aha qof bini aadam aan waxbaba xaaraan agtiisa ahayn oo haddana isagu gacanta kuugu hayo wixii la samaynayey walidaalika waa laga yaabaa inaad aragto waxa ugu yara aynu iibina waa nacnac hargeysa dhexdeeda anigoo marayaa nacnac iibsada dhowr iyo sagaashankii markaasaan furay waxaa ihi war barorta aan akriya waraaqda yara ku qoranayso jalaatiin baa ku jira yani xabada nacnaca ka bilow ilaa iyo waxa ugu sareeya wax waliba waa ku jira taa maxaan uga dan leeyahy taajirka muslimka ahi waa inuu og yahay waxa uu iibinayaa contentiska wuxuu ka samaysan yihi waxaan uu iibinayaa ee qofka muslimka ahi uu soo qaaday ee dunida dabadeeda ka keenay ama sharaab ha noqoto ama cunno ha noqoto ama daawo ha noqoto ama waxay doonaysa ha ahaato waxaan la sidaa inuu yahay wax xalaal ka yimi iyo wax xaaraan ka yimi xaaraantu waa yartaynu dhe laakiin ogaan bay meel walba u saarsaareen waxaan leenahay markaa qofka muslimkaa waxa hortaagan taxaddi alxalaali walxaraam ugu horeyn tijaaradaada see baad uga ilaalin lahayd xaaraanta see baad uga dhigi lahayd wax xalaala bini aadamka waa iskaga abuurantay xoolo jacaylku oo xoolaa waynu jecelnay wainahu lixubi اlkhayri la shadiid watuxibuuna almaala xuban jama bini aadamku xoolaha aada buu jecelyahay inuu helo laakiin qofka muslimka ahi wuxuu u baahan yahay inuu iska hubiyo xoolahaasi meesha ay ka soo gelayaan waa waxyaabaa laynagu beeray si laynoo itixaamo nabigu calayh salaatu wasalaam waa kii tilmaamayay qofka bini aadamkii haddii laba waadiyo dahaba uu haysto labtaqa thalis buu dalbaya mid saddexaad buu raadinaya hunguriga bini aadamka ciiduu baa buuxisa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba waxaynu u baahannahay inagoo noocaasi laynoo abuuray ayaa waxa laynagu yidhi kaasina waa xalaal kaasina waa xaaraane kaad qaadataa baana lagugu abaal marinaya dhanka kalena nafta bini aadamkii markay ururisana waxaa laynagu itixaame kale waxaa ka mid a uxdirat ilanfusu shux waxaa laynagu xaadiriyey bakhaylnimo wa kaana alinsaanu qatuura nebigu wuxuu tilmaamaya yahra bnu aadam bini aadamku waa gaboobaa laba shay laakiin ma gaboobaane dhallinyaradu mu ka ahaadaa xoolo jacaylka iyo ilaalintooda iyo cimriga iyo amalkaa dheer iyo da-daas in la sii jiro bini aadamku kama gaboobo maxaa ku saaran marka dunida waxa yaallaa baynu nihi waa nooca ah technologigina wuxuu fudaydiyey wax walba in la qaabeyn karo wax walba in la qaabeyn karo wax badan oo aanad adigu sawiranayninna inay cunooyinka ku jiri karaan matalan cunadu daasadaha ku jirta wax dhadhan loogu sameeyaa lagu daraa oo chemicalska marka la isku walwalaaqo wax dhadhan u sameeya waxaa dhadhanka u sameeya xaggu ka yima isweydiin leh waxaa lagu daraa wax isku haya inaanay kala miirmin oo waxa isjiidadkiisu inaanu kala bixin ayaa lagu daraa waxaa lagu daraa wax cimri dharar u sameeya inaanay hore u xumaanin waxaa lagu daraa konton shay waxaa lagu daraa qaar midab loogu yeelo waxaasoo dhami cunadii caadiga ahayd baa lagu walaaqaya cunadii xalaasha ahayd ee caadiga ahayd baa waxaan inta lasoo qaada lagu walaaq waxaad moodaysaa inuu beriis khaliya yahay ama inuu fuul khaliya yahay ama inuu cambe yahay baad ugu haysataa laakiin waxa ku walaaqane ku guda jira way tiro badan yihiin sida awgeed waxaan leenahay qofka taajirka ee muslimka ahi weliba dowladaheennan burburay aan cid waxbaadhaba lahayn
waa laga yaabaa meelaha adduunka dowlado adagi ka jiraan inay dowladuhu laab leeyiin iyo wax baadhaan oo censorship oo maxaa la soo deynayaa se maxaa la soo deynaya in la isweydiiyo. waxaan leenahay cala lmuslim bay maanta waxoo dhami saarantay. qofkan taajirka ee muslimkaabaa waxaasoo dhami saarantay inaad xalaal iyo xaaraan kala dooratid. yaa ayuha arusulu kuluu min alayibaati wacmaluu saalixa yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuluu amwaalakum baynakum bilbaatil. xoolahaas qaabkay kugu soo gelayaan inaad xalaalnimadooda ilaaliso. waana kuu nabigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam waxyaabaha ugu badan ee qofka diintiisa fasahaadiya inay ka mid tahay maalka iyo mansabku. nabigu yihi laba yeey ama laba waraabe oo adhi lagu sii daayey ugama fasaad badno qofka siday diintiisa u fasaadiyaan maxay xirsu lmari cala almaali waasharafi lidiini. qofku xoolaha jacaylkoodiiyo si u ururinayo iyo sharaf iyo maamuus iyo magac iyo mansab iyo dowladnimo siduu u raadinayo. aakhirana ilahi wuxuu leeyay qaar inta lasoo taagay inay ku halaan hali doonaan maa agnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya. xoolihii waxba igama tarin iyo sulطaankii iyo maamulkii iyo wixii aan haystay oo dhan. casriga dambana wuxuu nebigu ku tilmaamay inay ummadda zaman ku iman doonto laa yubaali اlmarءu maa akhada minhu amin xalaalin am min alxaraam. wakti aanay dadku uba aaba yeeli doonin waxaan soo gelaya ma xalaal baa mise waa xaaraan. weliba soomaalidu laba dhibba way qabtaa markay dhanka maalka joogto. dhaqan horo qadiima way qabaan oo waracu ku yaraa. soomaalidu geelay qaadi jirtay soo maha. geel nin muslima foofsaday oo halkaa uu u dareersaday saaka ayaa inta la qaadaaba weliba ammaan loo haystay. idan tii baadiyuhu dhaqankeedii hore kaasoo ah. tii magaaladuna waxay noqotay in la isweydiiyo wuxuu lacag matay waxaa ku soo gelayaa lacagun maye. inaan loo eegin ma xalaal bay kaa soo gelaysaa mise xaaraan bay kaa soo gelaysaa. ta dadka ka dhaxaysa iyadu kumaba sii jirto dowladaha iyo meelahaasi. lacalla dadka wax isku darsadaa in badan inay isboobaan. lacalla waxay u badan tahay dadku masalada maalka waa masalo adag. sida awgeed waxaynu leenahay laba shayba waad u baahantihiin. kow marka hore waxaana iibinaysaan xalaal iyo xaaraan waxay yihiin inaad garataan. marka labaadna dee inaad sharciga u egtaan dhankii kale ee wax iibinta iyo wax iibsiga iyo sharci buu jira ilaahay inoo soo dejiyey. sharciga alla inoo soo dejiyey waxna xalaal buu ku tilmaamaya waxna xaaraan buu ku tilmaamaya. waxna waxaa lagu tilmaamay inay maxay yihiin mutashaabih ama shubahaad inuu ku jiro. nebigu wuxuu u tilmaamay ninka waxyaabaha xataa madmadow kaga jiraan kaga tagaa inuu kaasi diintiisa dhowrsaday. ka ku dhiirada waxaa madmadowgu ku jirana inuu ismiga ku dhacayo. sida awgeed taxadiga labaad aan tilmaamaya ama challenge-ka ama caqabada labaad ee dadka soomaaliyeed haysataa ama muslimkaba intooda badan haysataa waa jahliga diinta jaahilka laga yihi. salaada inkastaba ha leekaatee waxbaynu ka baranaa. ugu yaraan weysadu waxay ku burtay iyo waa naqnaqaana. cumuuman salaada waxay ku asaxday arkaanteeda waa naqaana. laakiin haddaynu isweydiino yaa weli beecu fadhiistay oo bartay maca طulaab alcilmiga ku dar. xataa kutubta la dhigo inta badan طulaab alcilmiga dee cilmigan dambe ee gabadh ahi inta baabka cibaadaadka marka la qaataaba la iskaga tagaa. walidalik baan arkayay nin culamadii soomaaliyeed hore ka mido minhaajka markuu bilaabayo kitaabulbeyc buu ka bilaabi jiray. wuxuu odhan jiray kolley waa ka tegeysaa kane kamaaliday ka bilaabayaa buu odhan jiray.
sababta waxay tahay waxa yar dadka intuu fadhiistay isweydiiyey war muxuu beecu ku asaxaa, shareecadu maxay ka qabtaa, sidee wax loo iibiyaa, ilaah iyo rasuulkiisu maxay inooga sheegeen waxiibka. bale waxaad moodaa inaynu u dhadhownahay qoladii nebi shucayb loo soo diray. maxay yidhaahdeen? ma waxaad rabtaa an nafcala fii amwaalina maa nashaa bay ku doodayeen. maxaa dhaqaale iyo diin kala galay bay lahaayeen. dhaqaale iyo diin maxaa kala galay? tijaare iyo diin maxaa kala galay? laakiin waxaan leeyahay masalada labaad ee madowgu ku jiraa markaa waxay tahay xadiidkii طalab اlcilmi fariida calى kuli muslim ee ibnu maaja warinayey sanadkiisa inkastoo culamada qaar ay ka hadashay imaamu axmed iyo bayhaqi iyo nawowi iyo qoladaasi daciifisay, haddana albani iyo suyuud iyo rag kale waa tasxiixiyeen. laakiin macnaha xadiidka culamadu isku waafaqsantay in cilmiga la dalbaa oo qofka wixii farad isaga ku ah, haddaad guursanayso cilmiga guurka inaad barataa dee waajibuu kugu yahay. gabadhu maxay kaaga furmaysaa iyo maxaad ku qabaysaa iyo maxay xaq kugu leedahay. haddaad tijaareynaysana waajib bay kugu tahay inaad barato maxaa tijaarada ka banaan maxaanse ka banaanayn. haddaad salaad tukanaysana waajib bay kugu tahay salaada inaad barato. idan qof walba diinta waxa kaga waajiba inta khusaysa. sidaa awgeed waxaynu leenahay dadka tijaarada ka shaqeeya haddaad can jahlin ku gasho waxaad walaaqdo dee aakhira waa lagu qabsanaya adigoo awoodi karaya inaad barato. haddaad intaad iska bilowdo un tidhaahdo war waa insha allah waa iska hagaagaysa de anaa lacagtu maan dhiibaya isna alaabtu maan ka qaadanayaaye maxaa kale layga baahan yahay hadduu arrinkaagu gaadho waa lagu dabaqaya.